hadday tahay telefishinada iyo webabka labadaba dad xanuuno kolley anigu intii aan Soomaaliya joogi jiray aan hore loo arki jirin waxaa kamid ah qofkii oo gabigiisa wax laga yaabaa in hal lagu iska weynaato in buro intay ka soo baxdo madaxii dhinac noqdo oo qofkii waa uu laba madax yeesho qofkii oo madaxa la leeyahay biyaa ka galay xanuunada noocan siciid ma kuwa aan way aragnimadeedu aniga isiin baa mise kuwan oran karno wadanka ayay ku cusub yihiin والله عويل حنوده هرتا أول بوجهين لكن سيدنا وحسب بدلنا ميديا ده قفك حمر لجموتشيا أما هرجيس لجموتشيا أما كسبايا لجموتشيا أما هرر لجسوا صاروا أركيسوا ما عين تشري ده مركي هرين على ده حاسو كلية تسهيلات كعين كاسي لجو أركان بتشري أي لكن ده كان عروض تنا هيدا رسالة كان بدأ حبيه كجلي يعني وكله وواحد عند مركز ريشيو هان برسنتي كده عين بدينه ويشرين الفتيسيس كوكله dad qof lugtu buuran tahay waa la arki jiray maartay laakiin waxaan jirin markii hore waxay ahayd aaladaha kan iyo meediyada tan meesha walba wixii laga arkay laakiin waxyaabaha caynkaas waa wax mar walba wax jiray weeyaan laakiin ma aha wax cusubay dad badan oo Soomaaliyeed baa siciid waxay qabaan in arrimahani ay ka yimaadeen xanuunadan noocan oo kala ahi waxyaabo ka dhashay radio active ama suba Soomaaliya lagu daadiyay arrimahaasi maxaad dhakhtarhaan uga sheegi kartaa wallahi sunta Soomaaliya lagu daadiyo dadku way sheegan marka waxaas oo kale la sheegayna waxa weeyaan waxa loo baahan yahay wax specific ah oo qofku og yahay oo la xaqiijiyay in la sheego hadii marka la badda Soomaaliya wax lagu daadiyay cidii baaritaanka sameysay iyo baaritaanka natiijadiisii in la hayo weeyaan laakiin dadkeenu way iska dad leeymaan oo maartay iska hadalkeena ayaa sheekadeena ayaa badan wixii kasta sheekada lagu sheegaa qof waliba wuxuu leeyahay badda wax lagu daadiyaa laakiin cid wax sheegi karto oo xaqiijin karto oo data haysan arki maysid waxa kale oo jirta marka la leeyahay wax badda wax lagu daadiyaa sun oo dadkan ajnabiga ah ku daadiya kalluunkeenina waa la guranayaa la leeyahay waxaad moodaa labadaas